xabada socota meeyda yaal dhaawaca yaal waxa uu keenana wuxuu socdana waa dagaal waxa intaas wax laga argagaxaha oo runtii geeri ka xanuun badan COVID-19 ka qalabka loo keenay wuxuu dhacay expirekiisu wuxuu dhacay 2022 ayuu dhacay COVID-19 ki ayaa la keenay wuxuuna expire noqday 2022 wuxuuna shalay ka soo dejiyay degmada Moqokori taariikhdu markay ahayd 24kii bishii shanaad 2025 ayuu ka soo dejiyay asoo u keenay gargaar waxayna dhacday 2022 ayay dhacday waxa kaloo kamid ah waxyaabaha uu keenay Maxamuud Macallin oo keelkii loogu talagalay mootafeekonka loogu talagalay anaga mootafeenkon ma isticmaalnaa mootafeekonka baashi loogu talagalay ayuu keenay waad arkaysaa kartoomankaasay ku jiraan haddii aan been ka sheegayo waxa ka koreeya COVID-19 ka qalabka loogu talagalay iyo sidoo kale ookiyalka waxa ka koreeya kaliya 3-4 kartoon ayaa ka koreysa bis xataa mid shanaad haday dhacdo ana maxkamad lagu soo taaga waxa warre waa faleebada oo sokor ah oo ahayn cusbo waxay ka kooban tahay 2 kartoon kartoonkiina waxa ku jirta 12 xabo totalkeedu waa 24 xabo hadduu xabad kale 23 xabo oo Maxamuud Macallin keenay anaga mas'uuliyad dambiga qaadanayn waxa weeyliye kaniini kartoonkaas loo yaqaan collection macnaheedu waa isku dardar waa daawo yar isku dhex jirta waxay ka kooban tahay ibuprofen waxa dhacaysa 26ka bilowgeeda ay dhacaysa daawadaas beenka ma sheegayn dheedkeeda waa la qaadi karaa waa la fiiri karaa waa halka kartoon ay ka kooban tahay oo ah collection ah oo isku dhex jir ah haddii la rabo kuwaas waa la soo saari karaa haddii beenan ka sheegay waa la wada jeedaa waxa weeyliye sharoobooyin aniga ma aqaan sababta sharoobada duquyshada loo wada ma fahmin waxay dhacaysaa bishii 8aad 2025 ayay dhacaysaa waxa ka dhiman 3 bilood waa sharoobo multivitamin anaga ma dhiigan ku dhex jirnaa mise vitamiinaan ku dhex jirnaa wax intaas ka sii naxdin badan oo argagax leh 2 diyaaradood inuu soo qaatay gudoomiyaha maareynta musiibooyinka 2 diyaaradood soo qaatay COVID-19 Soomaaliya waxa socda arrinkan miyuusan shabaab nooga darnayn mase shabaab ayuu la mid yahay